Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maxaa sabab u noqon kara in magaalo bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan u korweydo? Halkan waxaan ku soo koobaynaa dhowr qodob oo ka qayb qaata dib u dhaca magaalo. Kow, dhaqaale xumo. Haddii magaalo aysan lahayn fursado shaqo oo badan, maalgashi dhaqaale ama kaabayaasha dhaqaalaha oo liita, waxay yareyn kartaa korriinka bulshada. Labo, maamul xumo. Haddii maamul magaalo uu yahay mid musuqmaasuq badan ama aan awood u lahayn qorsheynta iyo hirgelinta adeegyada muhiimka ah, waxay niyad jebinaysaa dadka. Saddex, amni darro. Haddii magaalo aysan ammaan ahayn, waxaa yaraanaya dadka degaya, taasoo hoos u dhigaysa korriinka bulshada. Afar, tayo xumo adeegyada bulshada. Haddii adeegyada muhiimka ah sida waxbarashada, caafimaadka iyo kaabayaasha sida wadooyinka, biyaha iyo korontada ay yihiin kuwo liita, waxay si toos ah saameyn ku yeelataa horumarka bulshada. Shan, kalsooni darrada bulshada. Kala qaybsanaanta bulshada, qabyaalad, ama dhibaatooyin kale oo bulsho ahaan isfahan darro keena waxay hor istaagi kartaa wada shaqaynta iyo horumarka. Lix, deegaanka iyo cimilada. Magaalooyinka leh xaalado cimilo daran sida abaaraha, fatahaadaha ama dhul aan ku habboonayn nolol, waxaa ku yaraanaya fursadaha horumarineed. Toddoba, ilaha dabiiciga ah oo kooban. Haddii magaalo aysan lahayn kheyraad dabiici ah oo ku filan, waxaa adag inay hesho ilo dhaqaale oo joogto ah oo ay bulshadu ku tiirsanaato. Sideed, qax iyo barakac. Haddii magaalo ay soo wajahaan dagaallo ama xasarado siyaasadeed, dadkii deganaa way ka qaxayaan, taasoo keenaysa hoos u dhac bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaanba. Dhagaystayaal, waxaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena maanta. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo